dhacdadii la hilmaamay 20 Noofembar 1979 miilaadiga oo ku aadan 1 Muxarram 1400 hijriyadii waxay ahayd maalin wadatay halisteedii iyo fidnadeedii. Salaadii fajr kadib waxaa laga maqlay rasaas masjidkii xaramka. Qof ayaa safka hore ka istaagay lana wareegay mikrofoonkii. Waxa uu bilaabay inuu ka hadlo fidnooyinkii dhacay xilligaas iyo inay yimaadeen qaar ka mid ah calaamooyinkii qiyaamaha. Waxa uu sidoo kale sheegay inuu Nabigu sallallahu alayhi wasallam sheegay in boqolkii sanaba waa lagu soo saari doono diinta qof soo celiyo. Waxa uu ka hadlay Mahdiga, waxa uuna sheegay inuu yimid Mahdigii. Waxa uu yeeray qof fadhiyay, waxa uuna ku dhawaaqay muslimiinta waa kan Mahdigii siiya baycadiina. Magaciisuna waa Maxamed ibn Cabdullah, kana soo jeeda reer Qaxdaani oo ka mid ah qabiilka Quraysh. Ninkii hadlayay ayaa ahaa Juhaymaan ibn Maxamed al-Utaybi. waxa uuna sheegay Juhaymaan in Mahdigu taagan yahay inta u dhaxaysa Xajrul Aswadka iyo maqaam Ibraahim, waana meeshuu Nabigu sallallahu alayhi wasallam sheegay inuu istaagi doono Mahdigu. waana inaa siisaan baycadiina, maxaa yeelay ninkan waxa uu buuxiyey intii uu Nabigu sallallahu alayhi wasallam sheegay. Dadkii waa ay yaabeen, albaabadii xaramkuna way wada xiran yihiin. Albaab walbana waxaa la istaajiyey niman hubeysan oo ka mid ah kooxdii Juhaymaan uu watay. waxaa la sheegaa inay ugu yaraan ahaayeen 200 oo qof. Maalintay qabsadeen xaramka ayaa ugu dambeysay salaad lagu tukado xaramka ama in lagu dawaafo. waxay ku qaadatay dowladdii Sacuudiga hal maalin inay soo ogaadaan wixii ka dhacay xaramka. Markii ay ciidamadii Sacuudiga isku diyaasheen inay galaan xaramka, waxay ogaadeen in la saaray munaaradihii xaramka niman shisha ku dheereeya. Culimadii qaar ayaa fatwootay inuusan ninkan ahayn Mahdigii, qaar kalena way isaga aamuseen. Haddii uu ahaan lahaa ninkan Mahdi, ma uusan daadiyeen dhiig isigoo ku jira xaramka, welibana bishii Muxarram. waxay sidoo kale qaar ka mid ah culimadii fatwoodeen in xoog loo adeegsan karo. Maalintii 9aad ciidamadii Sacuudiga waxay la yimaadeen taangiyo, waxaana ka dhex kacay dagaal ciidamadii Sacuudiga iyo kooxdii Juhaymaan, waxaana ku dhintay dagaalkii ninkii lagu sheegay Mahdiga, Maxamed ibn Cabdullah al-Qaxdaani. Juhaymaan iyo kooxdiisii waxa ay ku dhunteen qaybta hoose ee xaramka. ujeedaday ka lahayeen ayaa ahayd inay jirtay hal meel oo laga galo qaybta hoose ee xaramka, sidaas darteed si ay u dilaan marka ay soo galaan ciidamada Sacuudigu. Isku day badan oo ay sameeyeen Sacuudigu waa ay ku fashilmeen, ilaa markii dambe ay qaybta hoose ee xaramka ay ka buuxiyeen biyo, sidoo kalena ay u raaciyeen koronto. qaar ka mid ah kooxdii Juhaymaan ayaa ku dhintay, waxaana la qabtay Juhaymaan iyo 70 kale. kulligoodna waa la toogtay. sababtaan uga hadalnay ayaa ah in badankeenu og yihiin wixii dhacay dagaalkii 1 iyo dagaalkii 2 ee adduunka, aysan ogeyn fidnooyinka ugu waaweynaa ee qarnigan gudihiisa muslimiinta soo mara. waxay ahayd dhacdadan 38 sano ka hor.